kulan wanaagsan dhamaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii qubanaha maanta qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland oo mooshin ka gudbiyay shirkadda DP World ee maamusha dekedda Boosaaso iyagoo ku eedeeyay waxqabad la'aan muslimiinta Minnesota oo isu ballansaday inay salaada Ciidul Adha ku oogaan garoonka weyn ee US Bank si ay u muujiyaan cududooda Kofi Annan xogayihii guud ee hore ee qaramada midoobay oo ku geeriyooday dalka Switzerland ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idin haynaa aan ku bilownay 20 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa guddoonka baarlamaanka u gudbiyay mooshin ka dhan ah shirkadda DP World ee maamusha dekedda magaalada Boosaaso sheekadan waxaa la socday wariyaheena Garowe Nuux Muuse Barjaab Nuux nuuro waa sida aad sheegtay ku dhawaad ilaa iyo 20 xildhibaan ayaa mooshin ka keenaya shirkadda DP World oo horey loogu wareejiyay dekedda magaalada Boosaaso xildhibaanada waxyaabaha ay mooshinkan ka keenayaan waxa ay ku sheegeen in DP World waxyaabihii lagu ballamay ee heshiiska kamid ahaa in aysan buuxin muddo sanad ka badan waxa ay tilmaameen in dayac xoogan uu ka muuqdo dekedda magaalada Boosaaso oo ah isha kaliya ee dhaqaalaha Puntland xoogeeda uu ku tiirsan yahay waxa ay sheegeen in dekedda dayactir xoogan ay u baahan tahay ilaa iyo intii ay DP World joogtana in dekedda aan shaqo xoogan laga qaban sida in dayactir lagu sameeyo waxa kale oo ay sheegeen xildhibaanada in dayactirkii xataa horey uga socon jiray dekedda uu istaagay maadaama lagu haleeyay DP World inta xildhibaanadan aysan keenin mooshinkan ka dhanka ah DP World waxaa jiray in dadka deegaanka gaar ahaan magaalada Boosaaso waxgaradkeeda ay horey uga soo horjeedeen in dekedda magaalada Boosaaso lagu wareejiyo DP World xildhibaanadan badankood waa xildhibaanadii horey u ogolaaday in DP World ay ka howlgasho dekedda magaalada Boosaaso inkastoo ay xildhibaanada ku jiraan kuwa horey u diidanaa in DP World ay ka howlgasho balse xilligaasi laga codbadiyay oo xildhibaanada badankood ay ogolaadeen kadib markii la horkeenay heshiiska waxay kaloo sheegeen in wasiirka dekedaha Puntland uu waqtigan ku sugan yahay magaalada Garowe sidoo kalena ay filayaan in ay u yeeraan oo ay wax ka weydiinayaan sida xildhibaanada ay maanta tilmaameen xildhibaanadan ayagoo kooxo ah oo aad u fara badan ayaa waxa ay ka hadleen warbaahinta maxalliga ah waxayna muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan iyo qorshihii ay ku bilaabeen mooshinkan ka dhanka ah DP World waa mahadsantahay Nuux gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin muslimiin badan ayay muslimiintu doonayaan in ay xududooda muujiyaan iyagoo isu ballansaday in salaada Ciidul Adha ee toddobaadkan ay ku oogaan garoonka weyn ee US Bank talaabadan ayay muslimiintu ku doonayaan in ay fariin ugu diraan dadka muslimiinta necab warbixintan waxaa magaalada Minneapolis ka soo diray wariyaheena Maxamuud Mascade muslimiinta gobolka Minnesota oo ka hortagaya afkaaraha ku dhisan islaam nacaybka ee dhowrkii sano ee la soo dhaafay cirka isku sii shareerayay isla markaana muujinaya cudud ay ku leeyihiin gobolka Minnesota ayaa shaaciyay inay salaada ciidda ku dukan doonaan garoonka US Bank oo ku yaala faras magaalaha Minneapolis kaasi oo lagu qabtay xafladii Super Bowl-ka ee horaantii sanadkan Cabdullaahi Faarax oo ku magac dheer Cabdulwaajid kana mid ah guddiga maamulada masaajidda su'agaasimay isu soo baxan loogu yeeray Super Ciid ayaa sheegay in ujeedkoodu uu yahay in meesha laga saaro xumaha laga faafiyo muslimiinta isla markaana la weyneeyo munaasabadda ciidda tanna waxay ka mid tahay inaan cududda muslimiinta ee gobolka degan aan muujino sidoo kale midnimo aan ka shaqeyno in waxyaabo fara badan muslimiinta ay wada qabsan karaan dadkana la degan muslimiinta ahaynna aan tusno inaan waddanka degannahay magaalada degannahay aan isticmaali karno meel walba oo public ah oo loogu talagalay dadka u dhaxaysa aan isticmaali karno Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota qaarkood ayaa walaac ka muujinaya amniga kumanaanka muslimiinta ay halka meel isugu imanaya xilli ay soo kordhayaan kooxaha muslimiinta nacab dadka cabsida muujinaya ayaa waxay tusaale u soo qaateen weerarkii sanadkii hore loo geystay masaajidka Daarul Faaruq ee gobolkan maamulaha masaajidkaasi la weeraray Maxamed Carab oo kamid ah dadka soo abaabulay in salaada ciidda laga dhex oogo US Bank Stadium ayaa sheegay in ammaanka ay sugayaan ciidamada amniga ee magaalada Minneapolis
markii aad iskugu imaana magaalada downtownka waxaa codkeena soo muuqanaya awoodeena muuqanaysa waxaana leeyahay qofku sidiisaba gorayo waxa la yiraahdaa intay madaxa qarsatay u haysataa inay dhuumanayso iyadoo dhan annagoo marka magaalada joogno 82 masaajid aan ku leenahay magaalada meel kasta takbiirta ka socota xaafada aanan muslimiintu waligood aadin ba muslimiin intay aadeen oo ay masaajida ka fureen marka cabsida waxa goonida ah ayaa cabsi ah isku imaanshuhu waa cabsi ma ahane waxaan dhihi lahaa waa caafimaadka dadka cabsanaya maxamed carab ayaa sheegay in kumanaanka kun ee salaada ku dukanaya garoonka US Bank Stadium ay fariin u tahay kooxaha ka soo horjeeda muslimiinta iyo dadka u soo haajiray waddanka Mareykanka cududeena iyo isku imaanshaheenu waxay awood u tahay annaga waxay awood u tahay dadka saaxiibadeen allies-ka ee aan muslimiinta ahayn dhinac taagan yaa waxay mataqaana u tusaysaa inaan dad ku dhiiranahay waxaan anagu haysano sidoo kale maalintaasi dad aan muslimiin ahayn ayaa iyaguna muslimiinta salaada ciida la filaya inay kala soo qayb galaan oo durba isisi diiwaan galiyay maxamed mas'ad VOA Minnesota warbixin ay soo saareen khubaro dhinaca hubka ah ayaa lagu ogaaday in bambaanadii uu dhawaan isbahaysiga uu hogaamiyay Sacuudiga ay ku duqeeyeen bas waday caruur gudaha dalka Yemen lagu farsameeyay gudaha Mareykanka duqeyntaasi ayaa waxaa lagu dilay 51 qof oo 40 ka mid ah ay caruur ahaayeen weerarkaasi foosho xun ayaa waxaa ka argagaxay dunida oo idil telefishinka CNN ayaa jimcihii sheegay in khubaradu ay sawirro laga qaaday firirka bambaanada wax yar uun kadib weerarka ay ku ogaadeen cidda iyo halka lagu farsameeyay sida CNN ay warisay tirada firirka ayaa tilmaamaysa in walaxdani ay ahayd bambaano uu nooceedu ahaa Maka 82 culeyskeeduna uu gaaray 227 kilogram oo ay farsamaysay shirkadda Lockheed Martin oo ah tan ugu weyn ee hubka Mareykanka samaysa weerarkan oo lagu laayay arday iskuul dhigata ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay dad gaaraya 77 ruux oo 56 ka mid ah ay caruur yihiin afayeen u hadlay isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ayaa xilli sii horeysay sheegay in weerarku uu bartilmaameedsanayay dagaalyahano ka tirsan fallaagada Xuutiyiinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa sanadkii 2016 Sacuudiga xanibaad ka saaray soo iibsashada hubka sida huban loo hago kadib markii Riyadh ay weerar sidaan oo kale ah oo lagu hoobtay ay u adeegsatay hase yeeshee maamulka madaxweyne Trump ayaa Sacuudiga ka qaaday xayiraadaasi halyeygii hore ee ciyaaraha cricketka ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa maanta loo dhaariyay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan baarlamaanka cusub ee dhawaan la soo doortay ee Pakistan ayaa jimcihii shalay u soo xushay Khan inuu noqdo ra'iisul wasaaraha kadib markii xisbigiisa PTI uu helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka Imran Khan oo ah 65 sano jir ayaa noqday ra'iisul wasaarihii labaad oo si dimuqraadi ah lagu soo doorto gudaha Pakistan 70 sano ee Pakistan tahay dal madax bannaan doorashooyinkii baarlamaaniga ayuu Imran Khan ka helay 176 kursi halka xisbiga Pakistan Muslim League ee uu hogaamiyo Shahbaz Sharif uu helay 96 kursi Mr Khan ayaa hogaaminayay xulkii kubadda cricketka dalka Pakistan ee sanadkii 1992 ku guuleystay koobka adduunka ee ciyaaraha cricketka caqabadaha horyaalla ayaa waxaa ka mid ah dhaqaalaha ka hortagga saameynta dagaalka sukeeye ee Afghanistan iyo wanaajinta xiriirka Pakistan iyo Mareykanka oo waayadan dambe aad u liitay ugu dambeyntiina xogayihii hore ee guud ee qaramada midoobay Kofi Annan ayaa maanta geeriyooday isaga oo ay da'diisu ahayd 80 sano Mr Annan ayaa u geeriyooday xanuun yar oo muddo kooban hayay sida lagu qoray barta Twitter-ka ee hay'adda Kofi Annan Foundation Kofi Annan ayaa ahaa qofkii ugu horeeyay oo Afrikaan madow ah oo ka soo jeeda qaaradda Afrika oo madax ka noqda qaramada midoobay waxa uu soo maamulay muddadii u dhaxaysay 1997 ilaa 2006 sanadkii 2001 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize oo uu ku muteystay shaqadii uu ka qabtay arrimaha bani'aadanimada isaga iyo xaaska uu hadda ka geeriyooday Nan Annan waxay isu dhaleen 3 caruur ah haatanna waa wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxa inoo haya wariyaheena Maxamuud Mascade aad iyo aad baad u mahadsan tahay horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa bilaabanaya maanta sidoo kale waddanka Spain ayaa horyaalkiisu furmay hase haatee aan ku hormaro kulamo xiiso leh oo goor dhaweed soo gabagaboobay
horyaalka waddankaasi ingiriiska. kooxda kubadda cagta ee Cardiff City oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee horyaalka dalkaasi xilli ciyaareedkan uun ka yimid ayaa kulan adag waxay la yeelatay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. ciyaartaasi oo guriga Cardiff ka dhacday ayaa waxa ay 90 daqiiqo ku soo gabagabowday eber oo labada kooxood waxba iskama aanay dhalin. kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa mid ka mid ah ciyaartoydooda waxaa loo taagay calaamada gaduudan, laakiin kooxda Cardiff arrintaasi kama aanay faa'iideysanin oo hal dhibic ay labada kooxood kala qaateen. Everton oo lacag badan sanadkan adeegsatay isla markaasina ciyaaryahanno kala gedisan soo iibsatay ayaa kulan adag waxay iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee Southampton 2-1 ay ku badisay kooxda Everton. ciyaaryahan Theo Walcott ayaa goolashaasi mid ka mid ah dhaliyay, halka ciyaaryahan Richarlison oo u dhashay waddankaasi Brazil uu kulankii labaad oo xiriir gool dhaliyay, goolkiisii saddexaad ee horyaalka dalka Ingiriiskana uu ciyaaryahankaasi haatan dhaliyay. kooxda kubadda cagta ee Leicester City 2-1 ay kaga badisay Wolves. Tottenham Hotspur ayaa iyana 3 gool iyo 1 waxay ku garaacday kooxda Fulham. West Ham United ayaa laqday guuldaradii labaad waxaa lagaga badiyay gurigeeda oo FC Bournemouth ayaa 2 gool iyo 1 ku tuntay. waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee West Ham United ee xilli ciyaareedkan lacag aad u fara badan ay qarash galaysay. ugu dambeyntiina waddanka Talyaaniga ayaa horyaalkiisa xilli ciyaareedka 2018-2019 uu maanta furmay, waxaana horyaalkaasi uu furmayaa iyadoo uu ku soo kordhay ciyaaryahan sumcad iyo magac dunida ku leh, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo kooxda kubadda cagta ee Juventus ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. horyaalka waddanka Talyaaniga oo ka mid ah horyaalada dunida loogu jecel yahay, hase ahaatee in dhoweyda masraxa suuqa ciyaartoyda dunida luudluudayay ayaa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ku biiridda uu ku soo biiray. waxay dad fara badan isweydiinayaan in ay suuragal noqon karto in horyaalkaasi uu mar kale dunida meeshii lagu yaqaanay ku soo noqdo. intaasna waxaa ku dhan barnaamijkeennii qubanaha maanta. tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.